duu ilaahay ku gaadhsiiyo maalinta sagaalka dilxija waa yowmu carafe ah kelmad baan ku leeyahay maalintaas waa maalintii alla subxaanahu wa tacaala uu diintiisa dhammaystiray nicmadiisuna ay taam noqotay nin yahuudi ah baa u yimid cumar ibnu khataab markaasuu wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniina aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha low calayna macshara alyahuudi nasalat latakhadnaa dalika alyowma ciida haddii aayad kitaabkiina ku jirta annaga yahuudda ay nagu soo degi lahayd maalinkaa ciid baan ka dhigan lahayn buu yahuudiga cumar ibnu khataab ku yidhi markaasuu cumar wuxuu yidhi ayu aayatin yahuudigii baa yidhi wa alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina cumar baa ugu jawaabay qad carafnaa dalika alyowm walmakaana aladii nasalat fiihi cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam wahuwa qaa'imun bicarafa yowma aljumuca waan ognahay maalinkay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay nebi moxamed oo maalin jumcaha jooga carafana taagan weliba ay casir tahay ayay aayaddaasi ku soo degtay sidoo kale waa maalinta alla subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay ee uu yidhi wa shaahidin wa mashhuud alimaamu tirmidi wuxuu warinayaa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu alyowmu almawcuud waa yowmu alqiyaama walyowmu almashhuudna waa yowmu carafa washaahidna waa yowmu aljumuca sidoo kale ibnu cabaas iyo cikrima iyo daxaakba waxay ku fasireen walwatrida uu alla ku dhaartay washafci walwatri inuu witrigaasi uu yahay yowmu carafa rawaa muslimun min xadiidi abi qataada in soonka maalinta carafa lagu dhaafo dunuubta 2 sano sanadkii tegey iyo sanadka soo socda xadiidka caaisha ee imaamu muslim uu soo saaray sida uu tilmaamayana maalinta carafa waa maalinta ugu badan ee allah subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa naar ka xoreeyay allahuma jcalnaa minhum waa maalin la ducaysto maalinta ugu qiimaha badan duca lagu ducaystana waa ducada ugu qiimaha badan weeye sida uu imaamu tirmidi soo saaray wuxuu yidhi khayru ducaa ducaau yowmi carafa wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir duco waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan ducada yowmu carafa wax la yidhaahdo aniga waxaan idhi iyo ambiyadii iga horreysay iyo wax la dhahaba waxaa ugu qiimo badan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir si aad ducada aad uga faa'iidaysato waxaad milicsataa saamaynta ay ducadu qofka ducaysanaya ku leedahay adduunyadiisa aakhiradiisa nabadgelyadiisa shaqadiisa kurbooyinkiisa in la faydo dhan kasta waxaad milicsataa nabiyullaahi muuse oo meel erigo-ana jooga uusan cidno ka aqoonin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala gacmaha u taagtay rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir yuu alla intaa unbuu yidhi gabalkii ma dhicin ilaa nebiyullaahi muuse waxaa weeye wuxuu helay guri iyo zawja iyo shaqo ayuu helay dhallinyaradu meeshan aad ha u dhegaysteen shaqo la-aan baana haysa amni la-aan baana haysata dowlad la-aan baana haysata maalinta carafa hadduu alla ku gaadhsiiyo alla bari oo ilaahay janno weydiiso oo ilaahay adduunyo weydiiso oo ilaahay maslaxadaada weydiiso alla shaqo weydiiso guur wanaagsan weydiiso alla inuu ku waafajiyo khayray dunya waalaakhira weydiiso waxaan ku soo khatimayaa maa rawaahu albukhaariyu fii saxiixihi inuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada alaa hal ballagt qulnaa nacam qaala allaahumma fashhad markaasuu nabigu wuxuu ku sii daray kan jooga ha gaadhsiiya ka maqan sida ay maalintani xurmo u leedahay bishani ay xurmo u leedahay beledkan maka uu xurmo u leeyahay ayuu dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinnaba ay xurmada u leeyihiin oy xaaraam tahay in loo dhowaado inaynu dhuganno wacanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hana solonsiiyo alla subxaanahu wa tacaala maalinka carafa hana gaadhsiiyo hanana waafajiyo lima yuxibuhu wayardaa inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh